bilowgii cutubka koowaad bilowgii ilaah samada iyo dhulku abuuray dhulkuna qaab ma lahayn wuuna madhnaa gudcurna moolku dul joogay oo ruuxa ilaahna wuxuu ka dul dhaqdhaqaaqayay biyaha ilaahna wuxuu yidhi iftiin ha ahaado iftiin baana ahaaday ilaahna wuxuu arkay iftiinkii inuu wanaagsan yahay ilaahna iftiinkii ayuu ka soocay gudcurkii ilaahna iftiinkii ayuu u bixiyey maalin gudcurkiina wuxuu u bixiyey habeen waxaana jiray fiid iyo subax isla maalina ilaahna wuxuu yidhi meel bannaani ha noqoto biyaha dhexdooda oo iyadu biyaha ha ka soocdo biyaha markaasuu ilaah sameeyey meeshii bannaanka ahayd oo wuxuu biyihii bannaanka ka hooseeyey ka soocay kuwii bannaanka ka sarreeyey sidaasayna ahaatay ilaahna bannaankii wuxuu u bixiyey samo waxaana jiray fiid iyo subax maalintii labaad ilaahna wuxuu yidhi biyaha samada ka hooseeya meel ha isugu soo urureen oo ciidda engegani ha muuqato sidaasayna ahaatay markaasuu ilaah ciiddii engegnayd u bixiyey dhul ururkii biyahana wuxuu u bixiyey bado oo ilaah wuxuu arkay intaasi wanaagsan tahay ilaahna wuxuu yidhi dhulka ha soo bixiyo doog iyo geedo yaryar oo inina dhala iyo geedo waaweyn oo midho caynkooda dhala oo iniinahoodu ku dhex jiraan oo dhulka ku koryaal sidaasayna ahaatay dhulkiina wuxuu soo bixiyey doog iyo geedo yaryar oo leh iniino caynkooda iyo geedo waaweyn oo midho dhala oo iniinahoodu ku dhex jiraan iyagoo caynkooda ilaahna wuxuu arkay intaas wanaagsan tahay waxaana jiray fiid iyo subax maalintii saddexaad ilaahna wuxuu yidhi iftiimo ha ahaadeen meesha bannaan oo samada dhexa si ay u kala soocaan maalinta iyo habeenka oo ha u ahaadeen calaamooyin iyo xilliyo iyo maalmo iyo sannado oo iftiimo ha u noqdeen meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd si ay u iftiimiyaan dhulka dushiisa sidaasayna ahaatay oo ilaah wuxuu sameeyey labada iftiin ee waaweyn si uu iftiinka weyn u xukumo maalinta iftiinka yaruna u xukumo habeenka oo xiddigahana wuu sameeyey oo ilaahna wuxuu iyaga dhex dhigay meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd si ay dhulka u iftiimiyaan oo ay u xukumaan maalinta iyo habeenka oo ay iftiinka uga soocaan gudcurka ilaahna wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay oo waxaana jiray fiid iyo subax maalintii afraad oo ilaah wuxuu yidhi biyuhu aad ha u soo bixiyeen uun dhaqdhaqaaqa oo badan oo naf nool leh haadduna ha duusho dhulka dushiisa xagga meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd oo ilaah wuxuu abuuray nibiriyada badda oo waaweyn iyo uun kasta oo nool oo dhaqdhaqaaqa ee biyuhu aad u soo bixiyeen iyagoo badan oo caynkooda oo kale dhala iyo haad kasta oo caynkiisa dhala ilaahna wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay oo ilaah baa barakeeyey iyaga isagoo leh wax badan dhala oo tarma oo biyaha badda ka buuxsama haadduna ha ku tarmeen dhulka oo waxaana jiray fiid iyo subax maalintii shanaad oo ilaah wuxuu yidhi dhulku ha soo bixiyo uun nool oo caynkiisa dhala kuwaas oo ah xoolo iyo wax gurguurta iyo dugaagga dhulka oo caynkooda dhala sidaasayna ahaatay ilaahna wuxuu sameeyey dugaagga dhulka oo caynkiisa dhala
iyo xoolo caynkooda dhala iyo wax kasta oo dhulka gurguurta oo caynkiisa dhala ilaahna wuxuu arkay intaas wanaagsan tahay ilaahna wuxuu yidhi aan nin inoo eg ka samayno araggeenna oo iyagu ha xukumeen kalluunka badda iyo haadda hawada iyo xoolaha iyo dhulka oo dhan iyo waxa dhulka gurguurta oo dhan oo ilaah nin buu ka abuuray araggiisa ilaah araggiisa ayuu ka abuuray isaga lab iyo dhadig ayuu abuuray oo ilaah waa barakadeeyey iyaga oo ilaah wuxuu iyaga ku yidhi wax badan dhala oo tarma oo dhulka ka buuxsama oo ka sara mara dhulka oo xukuma kalluunka badda iyo haadda hawada iyo wax kasta oo nool oo dhulka kor dhaqdhaqaaqa oo ilaah wuxuu yidhi bal eeg waxaan idin siiyey geed kasta oo yar oo idina dhala oo ku yaal dhulka dushiisa oo dhan iyo geed kasta oo weyn kaasoo midho leh idiinuna dhala oo waxay idiin noqon doonaan cunto oo dugaag kasta oo dhulka jooga iyo haad kasta oo hawada duula iyo wax kasta oo dhulka gurguurta oo naf nool leh ayaan geed kasta oo cagaar ah cunto u siiyey sidaasayna ahaatay oo ilaah wuxuu arkay wax kasta oo uu sameeyey oo bal eeg aad bay u wanaagsanaayeen waxaana jiray fiid iyo subax maalintii lixaad